saalax sanaag waxaan leeyahay haddii leefleef wax tarayo haddii leefleef wax lagu helayo laguna wada joogayo garaadada garaad laawa jaamac iyo garaad qasqas ayaa nala joogi lahaa oo na leefleefayay maalintii lagu yidhi garaad laawa jaamacow hee $5,000 qaranka ka qaadan jirtay eenad shaqaysan jirin ee ahaa cashuurtii shacabka laga soo qaadi jiray hee waanu kaa joojinay shacabkaana wax loogu qabanayaa waxa loogu dhisaya wadooyinka adiguna lacag aanad shaqaysan xaq u marihid maalintii lagu yidhi garaad laawa jaamac waa kii dagaalka bilaabay garaad qasqasna isaguna sidaas la mid ah $5,000 buu qaadan jiray waa laga joojiyay waxaan leeyahay wiilkan yare saalax sanaag sheeganaya leefleef dambe oo dhulbaantana leefleefayo ama garaad ha ahaado ama fanaan ha ahaado ama wax kale ha ahaado ama abwaane waxa weeye leefleef dambe oo hargeysa leefleefa way dhammaatay taasi wayna soo xidhmatay waxaan ahay hooyooyinka laascaanood ubadkoodii ku xidhan yahay waxaa jirta waa 11 bilood inta ay xidhan yihiin warbaahintan annaga u yeedhanay 11 bilood ay halkaa ku xidhan yihiin cid tawday iyo cid ka hadashay iyo cid xusuusatay iyo cid ay ka maqan yihiin ilaa ma alhaan lama garanayo maalintii uu direyska xidhay ee uu militariga isqoray ayuu dhimasho isqoray hooyo waxaan ku leeyahay inankaaga haddii aanad dhimasho u ogolayn ama haddii aanad u ogolayn in la qabto xabsi la dhigo maxaad maalintii uu ciidamada qaranka gelayay hooyo meeshaas meel la gala maahay joog maxaad ugu orweyd waxa weeye madaxda qarankuna waxaan siyaasad bay ka leeyihiin innaguna jabhad kala wareejisan mayno maxaabiistan ka hayna jabhadda way la haynayaa kuwa inaga hayaana waa jabhadoo intaynu wada hadallo inaga iyo niman garaad laawa jaamac jabhad la hadli mayno jabhad la garnaqsan mayno jabhad weynu ka weynahay jabhad waxa weeye magaalada laascaanood kuwa jooga garaad laawa jaamac xaar firdhiye ikii al-shabaab tahay cabdimadoobe waa jabhad weeye jabhadna waxa weeye lalama gar dhigan karo maxaabiista iyagu hayaan iyo kuwaan inagu haynana lama kala wareejisan karo waa jabhad jabhadna wax lama wadaagi karo waa fanaanka kaliya ee nolosha isku jarjaray adiga hortaa imisa revenge la soo dulmaray markay aragtid wajigaaga igidado waa ballan walle kareem kuma gado kalarkaaga inaad iibisho kuma ahan gobanimo gunnimo ayaa ka hadle adigoo galay gabarnimo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun gunnimo ayaad ka hadlaysaa adiga oo galay gabadhnimo wiilka sidaa dayax qasqas u bahdilaya waa wiil reer muqdishona waa laga nacay hargeysana maba iman karaba waxaynu ka hadli doonaa 3 qodob baynu ka hadli doonaa haddii ilaahay idhaahdo wiil saalax sanaag la idhaahdo ayaa yidhi garoowe iyo gebile ima kala sokeeyaan way ii sima yihiin sidoo kale gaarisi waa ii berbera bal wiilkaas waxa uu la jeeday iyo leefleefka waynu dur istaagi doonaa insha allahu tacaala dhulbahante wallahi isaaq kama daayo leefleefitaan sidoo kale waxaanu dur istaagi doonaa wiil lagu magacaabo dayaxdal nuurshe anigu dayaxdal nuurshe uma yaqaana kuwiin qasqas baan u yaqaanaa bal qodobka isagaana waa dur istaagi doonaa waxaan idin tusi doonaa hees buu Somaliland uu ku karbaashayo soo qaaday weliba calankeeda gaar ahaan shacabka reer Somaliland ayaa u soo galay faalooyinkii bal faalooyinka ay yeeris la akhri doonaa haddii ilaahay idhaahdo sidoo kale bal waxaan dur istaagi doonaa qodobka saddexaadna hooyo ayaa soo hadashay wiilkeedu ku xidhan yahay magaalada laascaanood waxay tiri wiilkaygii iyo intii kale 400 ee ciidan ee laascaanood lagu hayo maxay madaxda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland maxay uga hadlaayihiin bay tiri bal qodobka isaga ahna waan dul istaagi doonaa haddii ilaahay maanta maxay ka dhigan tahay wiil halkaa ku xidhan inay hooyadii soo hadasho oo madaxdii qaranka dee magaranaysa tiraahdo damba lagama laha waayahay muuqaalkan like saara channelkan haddaad ku cusub tahay subscribe saar siina share gare bal marka hore waxaynu ku horeyn doonaa faalooyinkii shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ay ka bixiyeen markii uu hees soo qaaday wiilka lagu magacaabo dayaxdal nuurshe balse dayax qasqas la yiraahdo waayahay qofka ugu horeeya waxa uu yidhi hawiye iyo isaaq ayaa heesay iskugu jawaabay gartaye shiiqaal xagay ka socotaa qofka ugu horeysay committee soo qortay sidaas bay tiin waayahay wiil baa isaguna soo qoray wariye maxamuud
damaashaad ay ugu qoran tahay gabadha weli miyaan walici ka jabin milix siiya bal gabadha weli miyuuna walici ka jabin milix siiya bal waayahay qofka saddexaad ayaa iyaduna soo qortay waa gabadhe sidii dabkiibaa marna shidmaynaa marna dabaynaa ka waran hal hees iyo 1000 heesood hiidkiibaa idin gaadhay idinkuna macnaha 1000 heesood baad soo samayseen annaguna hal hees baanu soo qaadno waxaasoo kureyla iyo kara ayay idinka keentay wiil baa isaguna yidhi ku yara qosla laandariskow waayahay sow telegram maaha sow niiki maaha amison ku ilaaliso maaha sow adduunka ka dawarsan maaha waayahay inta aynu ku dhaafno koobitiyadii beercasaadka ahaa ee ay reer Somaliland heestii kaga falceliyeen bal aynu isla eegno wiilkan kale isaguna u gabyey waa wiil reer Muqdisho oo isagu markaa gabay ku karbaashay ama maase ku karbaashay wiilka lagu magacaabo dayax qasqas midabkiisa ayuu gato waa dalaal qasqaska ayuu marsadaa waa dabaal misdiyaano adigaa soo galay dagaal anna waxaan ku leeyahay weli soo dadaal isku qanacsanaanta qof waa qaali galoofiska doornada kulaha kama daali inaad iscadeyso ogow kugu filan waali bidixle isaga dhexbax ragga adoo ah raali qasiis weliba qoomkii fircoon ka haray iska dhaaf wasaqda fariintaas anaa sii faray waa fanaanka keliya ee nolosha isku jarjaray adiga hortaa imisaa revenge la soo dulmaray markii ay aragtid wejigaaga iga dado waa ballan wallee kareem kuuma gado kalarkaaga inaad iibiso kuuma ahan gobanimo gunnimo ayaa ka hadlay adigoo galay gabarnimo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun gunnimo ayaad ka hadlaysaa adiga oo galay gabadhnimo ninkaa waxba looma reebin wiilka sidaa dayax qasqas u bahdilaya waa wiil reer muqdishona waa laga nacay hargeysana maba iman karaba waaya badeena barigeena iyo midabkeena intaba iib ma ahan waa runtii xasan sheekh badda uu ka iibinayo Itoobiya waan idinka iibinaa uu leeyahay intaana xaggaas uu kaga hadlay reer Somaliland laakiin baddooda iyaga xor u ah way iibin karaan qodobka isaga bal halka ayaan kaga tagayaa wiil lagu magacaabo Saalax Sanaag ayaa isagoo hees soo qaaday yiri Garoowe iyo Gabiley ma kala xigaan gaaris waa ii berbera macnaha waa isku kay wada mid dhulka Soomaali meel kasta ay joogto bal isla yareego walaaran Garoowe iyo Gabiley kala jeclayn oo aan guri ceel artiyo goday kala sokayn gaarisa waa ii berbera gaarisa waa ii berbera koray inaan guulaha ka dayo gumaynta qofkii xiga inaan garab raacnoqdana Saalax Sanaag waxaan leeyahay haddii ayna Garoowe iyo Gabiley ku kala sinayn maalintii aad Hargeysa arooskaagii si fiican lagugu tumay oo isagoo dagaalkii Laascaanood socda markaad arooskaagii iyo hawlahaagii dhammaysatay eed hudheeladii Hargeysa ku dhex yaalay kuwii ugu quruxda badnaa aad ku dhigatay waad igi baxsaday Gabiley iyo Garoowena way ku kala xigaan waxaan ku leeyahay haddii leef wax tarayo haddii leef wax lagu helayo laguna wada joogayo garaad laawa jaamac iyo garaad qasqas ayaa nala joogi lahaa oo na leefayay maalintii lagu yiri garaad laawa jaamacow hee $5,000 qaranka ka qaadan jirtay eenad shaqaysan jirin ee ahaa cashuurtii shacabka laga soo qaadi jiray hee waanu kaa joojinay shacabkaana wax loogu qabanayaa waxa loogu dhisayaa wadooyinka adiguna lacag aanad shaqaysan xaq u marihid maalintii lagu yiri garaad laawa jaamac waa kii dagaalka bilaabay garaad jaamac garaad cali ama garaad qasqasna isaguna sidaas la mid ah $5,000 buu qaadan jiray waa laga joojiyay waxaan leeyahay wiilkan yare Saalax Sanaag sheeganaya waradeer garaadadaadii ayaa markii ma garanaysa leefkii loo diiday ayna leefayeen waxa weey dagaal bay bilaabeen waxaan ku leeyahay Garoowe iyo Gabiley way ku kala xigaan waxaan ku leeyahay Laascaanood iyo Hargeysa way ku kala xigaan dhulkaaga ku eekow annaga ha nooyman leef dambe oo dhulbaantana leefayo ama garaad ha haado ama fanaan ha haado ama wax kala ha haado ama abwaane waxa weey leef dambe oo Hargeysa leefa way dhamaatay taasi
wayna soo xidhmatay. kolkaa waxaan leeyahay wiilkaagaa saalax sanaag sheeganayo warama waxaad doontiis kaga soo hees balse waxa weeye Hargeysana ma iman kartid meel calanka Soomaaliland ka taagan yahayna ma iman kartid xabsigaanad ku waarasaa taa haynoo haato qodobka isaga bartaabaan kaga tegayaa wiilka yaree heesta dhex baan haylana u sheega qaada u geeya bal waxaad leegtiin hooyo waxa soo hadashay ciidamadii qaranka ee barta laascaanood ku xidhnaa mid kamid ayay dhashay aad bay u cabanaysaa balan isla yareego waxaan ahay hooyooyinka laascaanood ubadkoodii ku xidhan yahay waxaa jirta waa 11 bilood inta ay xidhan yihiin warbaahintan annaga u yeedhanay 11 bilood ay halkaa ku xidhan yihiin cid tawday iyo cid ka hadashay iyo cid xusuusatay iyo cid ay ka maqan yihiin illa ma alhaan lama garanayo dawladdu kama hadasho horta waxa weeye wiilka ay hooyadaasi dhashay iyo 40 kale halkaa 400 ay sheegaysaa ay halkaa joogaaba waxa weeye waxay u dagaalamayeen qarankooda ay dagaalamayeen maalintii uu direyska xidhay ee uu militariga isqoray ayuu dhimasho isqoray hooyo waxaan ku leeyahay inankaaga haddii aanad dhimasho ogolayn ama haddii aanad ogolayn in la qabto xabsi la dhigo maxaad maalintii uu ciidamada qaranka galayay hooyo meeshaas meel la gala maahay joog maxaad ugu orowey waxa weeye madaxda qarankuna waxaan siyaasad bay kale yihiin inaguna jabhad kala wareejisan mayno maxaabiistan ka hayna jabhada way la haynayaa kuwa inaga hayaana waa jabhado intaynu wada hadallo inaga iyo nima garaadlaawa jaamac jabhad la hadli mayno jabhad la garnaqsan mayno jabhad weynu ka weynahay jabhad waxa weeye magaalada laascaanood kuwa jooga garaadlaawa jaamac xaar firdhiye ikii al-shabaab tahay cabdi madoobe waa jabhad weeye jabhadna waxa weeye lalama gar dhigan karo maxaabiista iyagu hayaan iyo kuwaan inagu haynana lama kala wareejisan karo waa jabhadna wax lama wadaagi karo waxa weeye doorasho markay dhacdo aqoonsigiina qaranka loo soo qaado maalinta ayaa gacan raganimo lagaga soo saaraya kala shakigii ciidanku kala shakiyeen ayay ka faa'iideysteen waxa weeye intaa yar ayaa noloshooda ka harsanay ha iska sii joogaan intuu doorashada Muuse soo noqonayo waa 4 bilood weey ama 3 bilood bay nooga harsan maalintaas la soo afjaraya ee waxaan leeyahay hooyooyinka soo hadlaya xildhibaanaynu haynaa xildhibaanka gabadhii uu qabay may soo hadal kuwii uu isagu ka dhashay may soo hadal ilmaadeeradii may soo hadal bal inaga isaaqow dumarkeenan maxaa haya waa su'aale waxa haya muxuu yahay war waxaan leeyahay hooyooyinka ciidamada qaranka dhalay barta ku xiran aamusa waxa weeye maalintii uu ninku militariga uu noqday maalintaas uu dhintay uu ugu talagalay inuu dalkiisa markii uu u dhaartay inuu dhinto waxna uu magaranaysa cadawgana ka ilaaliyo maantana waa laga soo sabata bixin doonaa waana jabhadana waa la soo afjaraya laascaanood ka dagaalanta